إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada barnaamijkeenii qisasul qur'aan lilatfaal. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay qisatu islaam aljin. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. jinka waxay ka mid yihiin makhluuqaadka uu ilaahay abuuray. waxaa laga abuuray dab, waana makhluuqaad aan anagu arki karin. jinka waxaa la abuuray intii aana nebi aadam calayhi salaam la abuurin ka hor. sida ibni aadamka oo kalena jinku wuxuu leeyahay qaar mu'miniin ah iyo kuwa gaalo ah. kuwooda gaalada waxaa loo yaqaanaa shayaatiin, waxayna ka amar qaataan ibliis calayhi lacnatullah. waagii hore waxay lahaan jireen shayaadiintu meel ay fadhiistaan samada agteeda oo ay akhbaarta samada ka dhagadhageeyaan, waxyaalaha ay malaa'igta isgaarsiinayaan oo amirta ilaahay iyo waxyiga ilaahay ah ayay dhegeysan jireen. kadibna wixii ay soo maqlaan ayay soo gaarsiin jireen niman la yidhaahdo kuhaan, oo ah niman sheegan jiray inay qeybka wax ka ogyihiin, mustaqbalka soo socday waxa dhici doona inay garanayaan. nimanka ayay u keeni jireen. nimanka markay u keenayaan wixii ay soo maqleen kaliya umaynan keeni jirin, been badan ayay ku dari jireen. waxaa la sheegaa halkii run ay soo maqlaan ay ku dari jireen 99 been ah ayay kusoo dari jireen. markaas ayay u keeni jireen nimankan la yidhaahdo kuhanta. nimankan marka waxaa waaye niman aad dadka u qadarin jireen, warkooda aad loo dhegeysan jiray. dadku ay u iman jireen, waxay weydiin jireen mustaqbalka, ay su-aalo ka weydiin jireen iyo waxa dhici doona. waxa ay ugu tegi jireen markay iyaga isqabsadaan dadka dhexdooda in nimanka kuhanta ay kala saaraan. niman aad loo maamuuso oo warkooda la dhegeysto oo la aaminsan yahay inay mustaqbalka iyo wax dhici doona wax ka ogyihiin ayay ahaayeen. dhanka kale dadka markay ilaahay ka fogaadaan xiliyo badan waxaa dhici jirtay in qaar badan oo iyaga ka mid ah inay aad uga baqaan jinniga oo ay u haystaan in uu jinniga awood u leeyahay ama saameyn uu ku leeyahay maamulka koonka. mathalan jaahiliyadii carabta waxaa dhici jirtay qofka markuu safar galo uu meel banaana oo cidla u soo dego habeenkii in uu yiraahdo cudtu bicadiimi hada alwaadi, oo ah waxaan magangalayaa jinka ugu weyn waadigan ayaa magangalayaa. waxay kaloo dhihi jireen cudtu bicaamiri hada alwaadi, waxaan magangalayaa jinka waadigan haysta ugu weyn oo camiray ayaa magangalayaa. taas oo ah shirki iyo ilaahay kaliya in la magangala ayay ahayd, oo jinka iyo makhluuqaadka ilaahay wax awood gaara ay leeyihiin ma jirto. wax kastoo koonkan ka dhacay maamulkiisa waxaa iska leh allah, oo ay tahay keligiis in la magangalo. markii ilaahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray oo qur-aan ku soo dejiyey oo risaaladiisii ugu dambeysay ee risaaladii khitaamka ahayd ee bashariyadan in ilaahay ugu talagalay uu usoo dhiibay, waxaa ilaahay ka mamnuucay jinniga inay akhbaarta samada dhageystaan. oo markastoo ay isku dayaan inay samadii tagaan oo meelihii ay fadhiisan jireen ay fadhiistaan oo akhbaarta ay soo dhageystaan, waxay arkeen in samadii waardiye adag laga qabtay oo jinkii isku dayay inuu u dhowaadaba lagu soo tuuray gantaalo, oo markaasi ay u dhowaan waayeen samadii oo ay ku dhiiran waayeen inay meelihii ay fadhiisan jireen ay fadhiistaan. arrintaa markay la kulmeen waxay u yimaadeen ibliis, waxayna ku yiraahdeen culeyskaas ayaan la kulannay oo maanta kuma dhiiran karno samadii inaan tagno oon akhbaartii soo dhageysano. ibliis wuxuu yidhi saan inay dhacdo waxay ka dhalan kartaa keliya in arrin weyn ee dhulka ka dhacday oo markaas sababtay in loo diido inaan samada khabarkeeda dhageysano. marka wuxuu jinkii u kala qaybiyey qeybo, wuxuuna yidhi qeyb kasto dhulka qeyb ka mid ha aado, hana raadiso waxa dhulka ka dhacay ee weyn ee qiimaha leh ee keensan kara in naloo diido inaan samadii akhbaarteedii dhageysano. inta uu jinka ku jiro baadigoobka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dacwadiisii ka waday magaaladii maka, wuxuuna dadka ugu yeereeyey towxiidka, wuxuuna uga digayay cadaabka ilaahay. markii uu muddo dheer nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwada ka dhex waday maka
oo dadka badankiisa aysan dacwadii qaadanin, balse ay isku dayeen inay dacwadii hor istaagaan oo ay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaateeyaan. nabiga wuxuu go-aan ku gaaray in uu qabaaisha iyo magaalooyinka maka u dhow inuu dacwadii gaarsiiyo, si haddii magaalooyinkaas magaalo kamida ay dacwadii ajiibto ama dadkeedii ay ajiibaan, in uu magaaladaasi u wareego oo meeshaas uu kasii wado dacwadii. wuxuu soo aaday magaalada Taif oo maka u jirta 60 mayl ama maaragtay qiyaas 68 kilomitir u jirta ayuu soo aaday. waxayna soo raaceen mawlaahu Zayd ibnu Xaaritha, saxaabigaas dadkii ugu horeeyay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey uu ka mid ahaa. markay soo raaceen waxay yimaadeen magaaladii Taif. wuxuu inta uusan Taif gaarin sameynayay inuu qabaaisha yaryar ee wadada maka iyo Taif u dhexeysa degan wuxuu ugu yeeri jiray tawxiidka, dacwadiisa u bandhigi jiray, qur-aanku dul akhrin jiray, wayna diideen kulligood. kadib hore ay u socdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna tagay Taif. markii uu tagay Taif, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay saddex nin oo walaalo ah oo kamid ah madaxda magaalada Taif, waxaana la kala dhihi jiray Cabdu Yaleyl iyo Mascuud iyo Xabiib. markii uu nabiga la fadhiistay wuxuu ugu yeeray tawxiidka, wuxuuna ugu yeeray inay islaamka u gargaaraan oo ay maaragtay noqoto Taif meeshii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka xaqa ka gaarsiin lahaa. saddexdoodii mid kamid wuxuu yidhi, waxaan jeexjeexayaa dharka Kacbada haddii adiga aad nabi tahay oo ilaahay ku soo diray. midkii labaad wuxuu yidhi, ilaahay qof aan adiga ahayn uu soo diray miyuu waayey. midkii saddexaadna wuxuu yidhi, aniga kulama hadlayo, haddii aad nabi tahayna waad ka saraysaa inaan kula hadlo, haddii aadan nabi ahayn ood been sheegaysana damaba haboona inaan kula hadlo. kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ka tegay saddexdoodii, wuxuuna hore u galay magaaladii. wuxuu bilaabay dadkii inuu khayrka ugu yeero, dacwadii u sheego, tawxiidkii ugu yeero. wuxuu joogay magaalada 10 maalmood uu maaragtay dadkii la hadlayey, uu gaarsiinayay risaaladii ilaahay. intaa markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sameeyey, waxaa u yimid madaxdii reer Taif, waxayna ku yiraahdeen magaaladana nooga bax. intaana kuma ayaan ekeysaneen, waxay sameeyeen dadkii wax magaratada ahaa ee sufahada ahaa ayay u yeereen, waxayna yiraahdeen ninkan dhagaxeeya. dadkii waxay sameeyeen 2 saf, kadibna waxay ku bilaabeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dhagaxaan ku tuuraan, inay aflagaadeeyaan, inay hadallo aad xun ku dhahaan ayay bilaabeen. Zayd ibnu Xaaritha oo nabiga la socday wuxuu aad isugu dayay inuu ka ilaaliyo nabiga dhagaxyada inay ku dhacaan, ilaa ay Zayd laftirkiisa dhagaxyadii qaar kamida ay madaxa kaga dhaceen oo dhaawacay ka soo gaaray. nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga laftirkiisa dhagaxyadii la tuurayay way ku dhaceen ilaa ay dhiigga ka socdo uu kabihiisii buuxiyey ayay gaartay. saas ay dhagax ugu wadeen ilaa uu galay beer magaalada Taif banaankeeda ku taalo oo ay lahaayeen Cutba ibnu Rabiica iyo Shayba ibnu Rabiica oo 2 nin oo walaalo ah oo reer Maka ah. beertii markuu galay ayay ka daayeen dhagxaantii ay ku tuurayeen. markii uu beertii galay wuxuu hoos fadhiistay geed hoostiisa, wuxuuna bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam in ilaahay baryo. ducadan cajiibka ah oo mashhuurka ayuuna ku ducaystay: allaahumma ilayka ashkuu dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaas yaa arxama araaximiin anta rabu almustadcafiina wa anta rabbii ilaa man takilunii ilaa baciidin yatajahamunii am ilaa caduwin mallaktahu amrii in lam yakun bika calaya gadabun falaa ubaalii ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء عجيبك يكدو عيستي إلهي وبنك تدبك هيستو إيو وحق بصدي وحونا إلهي كما قنقلي إن إلهي وكعراضه وحونا دعاء سكون وجيه شيء كلية ونبي عليه الصلاة والسلام كول وليه إن يتهي عرض إلهي أي سنهين وحكست أو كدعية إن سمحوصا وأركن مرهدي إلهي ورالك إياهي ودعاء عجيب بدناه. عتبة ابن ربيعة يشيب ابن ربيعة مركي أركين قاب كاس ونبي عليه الصلاة والسلام كسوغين هاي سيدا ودبين هاي وحا كوكاعي درينكي قرابا نمو مدام ay reer Quraysh isla hayeen oo reer Maka isla hayeen waxay u yeereen wiil adoon ah oo iyaga maaragtay lahaayeen oo nasraani ah oo la oran jiray Cadaas waxayna ku yiraahdeen Cadaas waxaad qadaa cinabkan u qaad
ninka halkaa fadhiya geedka hoostiisa. Markii uu Cadaas cinabka u keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabigu wuxuu qabsaday cinabkii wuxuuna yidhi bismillaah. Cadaas aad ayuu ula yaabay ninkaan dhahaya bismillaah. wuxuu yidhi dadka halkaan degan kelimadan ma dhahaan adiga aad leedahay. wuxuu yidhi adiga halkeed ka soo jeedaa? nabiga ayaa weydiinaya Cadaas, adiga halkeed ka timid oo beledkaaga waa beledkee, diintaaduna waa maxay? Cadaas wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nasraani, waxaana ka imid tuulo la yiraahdo Naynawa. wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuuladii ninkii wanaagsanaa ee la oran jiray Yunis ibnu Matta. wuxuu yaabay Cadaas, wuxuu yidhi adigu maxaad ka garanaysaa Yunis ibnu Matta? wuxuu yidhi Yunis ibnu Matta waa walaalkay, wuxuu ahaa nebi, anigana nebi ayaan ahay. Cadaas nabiga calayhi salaam ayuu ku booday, kadibna wuxuu bilaabay inuu maaragtay gacmihiisii iyo lugihiisii inuu dhunkado, isagoo markaasi aad arrintaasi mashaacirtiisa iscelin waayey. waxaa arrintaa daawanayay Cutba ibnu Rabiica iyo Shayba ibnu Rabiica. markay arkeen wiilkan sida uu sameynay siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam u dhunkanayo, waxay yidhaahdeen alleele wiilkiini waa idinka fasahaday oo Maxamed ayaa gacanta ku dhigay, khatar ayuu wiilka idinka geliyey ayay yidhaahdeen. markuu usoo noqday Cadaas waxay ku yidhaahdeen maxaa kugu dhacay, maxaa maaragtay Maxamed aad saas ugu dhunkanaysay ood maaragtay ugu booday? wuxuu yidhi dhulkan dushiisa ma saarno qof ninkaa ka khayr badan, oo wuxuu ii sheegay wax maaragtay uusan sheegi karin qof aanan nebi ahayn ayuu ii sheegay. markaas ayay ku yidhahdeen Cadaasow, ninka ayuusan diintaada kaa reebin, diintaada ayaa ka fiican diintiisa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dib ugu soo noqday Maka. isagoo waddadiisii kusoo jira ayuu meel waadi ah oo la dhihi jiray waadi Nakhla oo Maka iyo Taa'if u dhexeeya ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku degay xilli habeena uu isaga nasanayey. meeshaa markuu degay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaabay inuu salaad u istaago oo qur-aanna akhriyo. sidaan sheekada hore ugu soo sheegnaba, jinka waxay ku jireen baadigoob oo ay raadinayaan waxa dhulka ka dhacay oo sabab u noqday in iyaga laga mamnuuco in ay samada akhbaarteeda soo dhageystaan. jinkii qayb ka mida oo raadintii ku jira ayaa waxay yimaadeen meesha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanayo, waxayna maqleen qur-aanka uu akhrinayo. markii ay arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadii uu tukanayey iyo qur-aankii uu akhrinayey, waxay bilaabeen inay dhageystaan. waxay yidhaahdeen aan aamusno, si fiican aan u dhageysano warkan. markii ay dhageysteen oo ay fahmeen qur-aankii, waxay dhaheen waa risaaladii ilaahay, kana waa nebigii ilaahay. waxayna rumeeyeen nebigii iyo qur-aankii, waxayna go-aan ku gaareen in ay jinka intiisa kale ay gaarsiiyaan oo ay yidhaahdaan kaalaya ilaahay rasuulkiisi rumeeya oo kitaabka ilaahay soo dejiyey rumeeya, ayay go-aan ku gaareen. intaa kaliya ma ahayne jinka marar badan oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ay u imaan jireen, qur-aanka ayay dhegeysan jireen, nabigana qur-aan ku dul akhrin jiray. waxaa ka mid ah markii suuraturaxmaan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dul akhriyey oo dhageysteen, oo suuraddaasi ay ku jirto aayadda ah fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan, oo dhowr mar ay kusoo noqonayso. markastoo aayaddaas uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dul akhriyaba waxay dhihi jireen walaa bishayin min aalaa'ika rabbina nukadib. aayaddu macnaheeda waxaa weeye aalaadii iyo nicmooyinka ilaahay idin galay keebaad beeninaysaan, insaanka iyo jinniga hadaad tihiin. markaas jinnigu waxay dhihi jireen mid kamida nicmooyinkaaga rabbi oo aan beeninayna ma jirto, kulligood waan aaminsannahay, falaka alxamdu, adiga ayaa mahad iska leh ayay dhihi jireen. arrintaa waxay ahayd mucjiso aad u cajiib badan oo ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uga dhigay bishaaro qalbigiisa uu ku dejiyo, oo dhibkii haystay iyo rafaadkii uu kala kulmay dadkii uu dacwadii ugu yeeray, reer Maka ahaadaan iyo reer Taa'if ahaadaan, iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay, in ay maaragtay qaboojin uga noqoto. oo bishaaradan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ula kulmo in jinkii qaar ka mid ah in ay rumeeyeen kitaabkii iyo nebigii iyo risaaladii ay rumeeyeen, oo ay go-aanna ku gaareen inay jinka intiisa kale inay gaarsiiyaan. oo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tusisay in haddii basharkii xataa ay qaar badan oo kamida diideen xaqii, in khalqigii ilaahay qaar kamida oo jin ah uusan nabiga arkaynin, oo ilaahay subxana watacaala uga waramaya in ay dhageysteen oo ay rumeeyeen oo ay maaragtay bal go-aan ku gaareen inay sii faafiyaan. arrintaasi marka waxay ahayd bishaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u keenay oo qalbigiisa uu ku dejinay.
halka ay sheekadii noogu dhammaatay waxaan ka faa'iidaysanaa sheekadani inay habboon tahay qofka muslimka inuusan marna ka daalin inuu dadka khayrka u sheego, uu khaladkana ka celiyo, uuna u sabro dhib kasta oo arrintaa kaga yimaada, kagana daysaday nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam sabarkii dheeraa uu usoo sabray in uu dadka gaarsiiyo risaalada allah. waxaana habboon qofka muslimka inuu mar kastaba ilaahay ku kalsoonaado, uuna ka cabsanin cid aanan allah ahayn. mahadsanidin la socda sheekooyinka soo socda. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين